ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa si rasmi ah u furay shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasiiro xildhibaano dhalinyaro ka kala socotay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay shirkan oo diiradda lagu saarayo doorka dhalinyaradu ku yeelan karaan siyaasadda dalka. marwo Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ujeedka shirkan uu yahay sidii loo cadeyn lahaa kaalinta ay dhalinyaradu kaga jirto arrimaha siyaasadda maadaama ay yihiin lafdhabarkii dalka. haddii aan soo koobo ujeedada shirweynahan waa in fursad loo siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadda dalka, in la xoojiyo isdhexgalka bulshada, in la muujiyo karti iyo awood dhalinyaradeenu leedahay, in la helo ra'yi iyo fikrado dhalinyaradeena oo isku duuban, in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo wadaniyadda iyo wadajirka oo kaliya in inta laga gaari karo dalka oo nabada barwaaqo iyo nolol horumarsan. mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ammaanay kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin horumarka dalka asagoo ku dhiirigeliyay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta dalka. si rasmi ah ayuuna u furay shirka. mowduuca maanta ee ah dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed maxay ugu fadhidaa bulshooyinka Soomaaliyeed. waxay ogsoon tihiin in dhalinyaradu 75% ay yihiin population-ka shacbweynaha Soomaaliyeed. taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya rajo fiican bay leedahay. xuduudda ugu weyn iyo xoogga ugu weyn ee ay leedahay maadaama dhalinyaro yahay. dhalinyaradu dhaqaalaha iyada kobcisa, xoogga wax soo saar ee dal leeyahay ee uu ku faana waa dhalinyaro. marka maadaama aqlabiyadda population-ka dalkaasi uu dhalinyaro yahay, dalkaasi rajo weyn buu leeyahay. dunida wadamo badan waxay la halgamayaan in qoysaska lagu wacyigeliyo inay caruur dhalaan si xoog dhalinyaro dalkaasi u yeesho. shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah, waana shir sanadkiiba mar ay qabato wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.